السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عنده الحمد لله وفي عنا يعني هات المقال كأسمين آيه أذيقنا عف ماذا كوريجينا مركلة وحكوسو دوينا فصل كعصب فهم 1 وحنقول لك دونا مادة كيمستري أدو إلى هذا فصل كي سديدات ساينس مادة لها سوق قادن جرني حدنا waxaan qaadan doonaa maadada la yiraahdo chemistry oo ah qayb yar oo science kamid ah insha Allah muuqaalkan waxaan ku sharxeynaa isbuuca koowaad casharkii aan iskuulka ku soo qaadanay casharkaas wuxuu ahaa hordhac introduction to chemistry hordhaca maadada chemistry isla muuqaalkaas isla casharkaas ayaan mar kale isla fiireynaa science and its branches science-ka iyo laamihiisa waa casharkeeni koowaad the word science came from Latin scientia that means knowledge marka koowaad intaan science qeexin ka hor waxaan rabnaa inaan ogaano ereyga science muxuu yahay ereyga baan la barayaa markaas wuxuu leeyahay ereygaas waxa waaye is a word waa erey that came from oo ka imaaday Latin oo ka imaaday Latinkiisana waxa la dhahaa scientia ayuu ahaa that ereygaas macnihiisa that means ereygaas macnihiisa oo scientian la yiraahdana waa knowledge aqoon way science maxaa la dhahaa hadaan bareynaa marka science-ku is the study of waa in la barto waxaa la baranaa laba shay baa la baranayaa hal shay baana laga baranayaa labada shay la baranaya waxa waaye nature and behavior waxaa la baranayaa hab dhaqanka iyo dabciidda hab dhaqanka iyo dabiici ahaanta physical universe koonka anaga aan ku noolnahay baa horta hore maadada la yiraahdo science ee ku bareena maadadaasna waxa ka koonkaasna waxa ka bareena laba shay labada shay waxa waaye koonka anaga aan ku noolnahay hab dhaqan ahaan waa sidee labo waxa baranayna koonka anaga aan ku noolnahay maxaa dabiici ah oo dhex ahaaday aynu ku baranaynaa science waxaan ku baranaynaa barashadaas la baranayana based on waxa lagu saleeyay scientific method hanaan cilmiyeed baa lagu saleeyay oo maxaa laga wadaa quraanka ma lagu saleynin xadiisna lagu ma saleynin waxa lagu saleeyay maxaa ka wada good waxa lagu saleeyay maxaa ka wada yaanaha aragtiyadaha laga sheegi doono koonka dabciyaadka uu leeyahay iyo waxyaabaha dabiiciga ah ee koonka dhex ahaaday xogta laga sheegi doono waa xog ku imaaday kadib markii la raacay hanaan la dhaho scientific method isla fahamay tusaale ahaan waa aqaanaa macallin tsunami youtube ku aqaanaa waa aqaanaa macallin tsunami aqoonta aan garanayana waxay ku saleysan tahay social media youtube or facebook ay ku saleysan tahay marka meesha maxaa marka adi aqoonta ani ii leedahay waxay ku kooban tahay only ina camera iga aragtay ana muuqaalka codkayga dhageysatay marka adduunka behavior-ka nagala sheegi doono nature-ka nagala sheegi doono waxa lagu saleeyay waxa la dhaho scientific method waa maxay in baaritaan la sameeyay wax la mala awaalay la tijaabiyay kadib laga soo saaray aragti
taasay ku timid. The knowledge aqoonta of science and science-ka loo leeyahayna has been developed waa horumartay by waxaa hormariyey the application isticmaalida of scientific method ee hanaan cilmiyeedka oo ku dhisan in wax horta hore la baaro, la mala awaalo, la tijaabiyo, kadibna la soo gabagabeeyo. waa qaadan doonaa hanaankaas ayadoo la maraayo ayaa science-ki aad u horumaray waay. Okay, xagga waxaan kaga bixinaa marka ereyga science intuu ka imaaday Latin. Science maxaa lagu qeexaa? Science maxaa lagu daraasayaa? Labo, nature and behavior oo maxaa laga baranaa? Physical universe. hay marka la baranayo maxaa lagu saleeyay? Scientific method. Science-ka maxaa lagu hormariyay? Isticmaalka scientific. Okay, branch of science. laamaha science-ka marka. Science-ka laamaha uu leeyahay. Science-ka saddex laan ayuu buugeena qorayaa. laan la yiraahdo qayb la yiraahdo social science, qayb la yiraahdo formal science, iyo qayb la yiraahdo natural science ama neutral science. qaybta ugu horeyso marka la dhaho social waxaa kugu soo dhacayo maadadii aad soo baran jirtay ee cilmiga bulshada fasalka dugsiyada hoose iyo dugsiga dhexe aad ku soo baran jirtay. dabcan yes, cilmi bulsho marka la dhaho maxaa ka soo baxay meesha? waxaa ka soo baxay bulshada in aqoon loo yeesho. Science-ka qaybo waxaa ku jiro oo ah qayb bulshada in aqoon loo yeesho ka hadlaysaa jirto. Are you on the boat now? Doonta ma saaran tahay? Okay, laantaas marka maxaa la dhahaa? Is the study of waa in la barto, yaa la baranaa people, dadka in la barto, culture, dhaqanka in la barto, and societies iyo in la barto bulshada. maxaa dhahnay? cilmiga bulshada. Social science cilmiga marka la dhaho waxaa la baranaa dadka, waxaa la baranaa dhaqanka, waxaa la baranaa bulshada. Okay, maxaa laga baranaa marka? dadka marka la baranaa waxaa laga baranaa juqraafi ahaan xaggee degaan dadkan aa la baranaa. waxaa la baranaa historical, dadkan maxaa taariikhay leeyihiin. waxaa la baranaa dadkan luqadda ay ku hadlaan maxaa waaye. dadkan luqadda ay isticmaali jireen waa maxay. dadkan oo aan baranayno siyaasad ahaan, dad siyaasadooda intee la eg tahay waaye. kuwaas markaa baranaysid science-aa baranaysaa. gaar ahaan waxaa baranaysaa maada loo yaqaano, qayb loo yaqaano social science. ma fahanta hadda? Okay, formal science. formal science maxaa tahay adigana? formal science yani is study of aku dhaha mujeda. waxaa laga yaabaa buug inuusan saas ugu qornayn is study ugu qornayn. why asaan ugu qoraya? waxa u madax banaanahay inaa aniga sidaa wax u fahmayo inuu ardayga u fahmi karo inaan kugu qoro, not the book. buugga waxaa waajib igu ah inaan raaco cashiradiisan aan qoro, laakiin waajib iguma aha sida buug u qornaa u qoro. ma fahanti? waa haddaad qadka igala socotiya. haddii iskuulkayga aad joogtid deena okay. formal science is the study of formal system. formal science waxaa lagu bartaa systemka caadiga ah sida waxyaabaha logicska, waxyaabaha mala abaalka ah, xisaabaadka oo kale ayaa lagu bartaa. an iyo it laantan oo la yiraahdo formal science-ka aids waxay caawisaa the natural science. laan kale oo imaan doonta ayay caawisaa oo ay kabtaa. qaybta kale waxaa la dhahaa natural science. ayadana natural science is the study of physical world. is the study of physical world. physical physical sana amjida. you say wallahi, you know, physical ay igu dilaysaa wallahi. waxaa yana you strong man, muscles, yeah. physically يعني qofkaas physical qof oo la aamini karo ma ahan. maybe he's short, maybe yeah. Okay, caalamka marka waxaa laga baranaa dusha. yeah, that's it. natural science-ka asaa laama kale usii baxay marka. ustaado waxaa ku weydiinaa adiga misan barosahay waxa aan baros maxaa waahay.
su-aal fiican waaye mudul iyo ninka dhisi yaa weyn mudul maanada guri iyo ninka dhisi yaa weyn yaa da weyn ninka dhisaa da weyn mis maaha chemistry asaga intuu ka imaado horta chemistry waa science de science marka abaabihii science ka waaye ciyaalkiina chemistry waaye adoo marka aabihii ka siinin ciyaalkii mbarey maymo sometimes lahjada waxaan gashanaa oo raaxa marka is okay subdivision of natural science ko waxaa ka mid ah yacnaha natural science ah qeybo kale ka sii baxay macnaha qeybahaas waxaa ka mid ah life science earth science iyo physical science saddexaa kasii faracmayso life science-ka maxaa lagu bartaa is the science of waa science-ka oo living organism noolaha nool lagu barto natural science laamo kalaa ka faracmo laan waxaa kamid ah la dhahaayo life science life science-ka waa maxay waa science-ka lagu barto noolaha nool ayaa lagu daraaseeyaa waxaa ka mid ah biology-ga iyo ecology-ga ka mid ah labadaas maadana waxay ka mid yihiin maadooyinka lagu barto living organisms anaga science-a baranoona okay biology-ga hadda macalinka biology-ga uu noo dhigayo maxaa waaye life science waaye haye gaar ahaan maxaa ku baranoona biology-ga living organism and non-living organism okay earth science imaaw waa science-ka dhulka is the science of earth maho waa science-ka dhulka its atmosphere gibilka hawada yani dhulka markuu saan yahay hawada ku wareegsanaa lahaa atmosphere and space iyo faraaqada u dhaxaysa spacekiisa yani the sky and the land spaceka u dhaxeeya okay waxna kuwaas marka la baranayo waxaa la dhahaa earth science okay physicals ama spaceka wuxuu noqon karaa baaxadiisa physical science waa maxay isagana is the science of matter marka meesha noqosaysa waatana physical science is the science of waa science-ka oo matter walaxda lagu barto energy tamarta lagu barto and physical properties iyo sifaad duleedka lagu barto sifaad duleedkaasoo universe kownka waxaa la baranayaa sifada dusha uu ka leeyahay maxaa waaye okay waxaa kaloo la baranayaa walaxda kownkan ku jirta maxaa waaye waxaa kaloo la baranayaa tamarta ku jirta ani marka chemistry ahay waxaa aadayaa qaybta maatarka physics imaan doono inkastoo energy qayb aan kasoo gali doono laakiin ma badna qayb waxaa ku imaanaya maxaa leeyahay physics asagan energy gu aadaa saa loo kala baxaa marka laakiin macalinka physics ka dhigaayo macalinka chemistry dhigaayo macalinka biology ka dhigaayo xitaa macalinka xisaabta dhigaayo dhammaanteen waxaan ku baranaa science bye bye week koowaad week labaad aan baranay thank you